iyadoo maalintii shalay ay golaha baarlamaanka Somaliland ansixiyeen saldhigga Imaaraadku uu ku yeelan doono magaalada Berbera ayaa ay ku soo dhaweeyeen kulan ay saaka isugu yimaadeen qaar ka mid ah dhalinyarada iyo aqoon-yahanada gobolka Togdheer iyagoo sheegay in ay tahay horumar iyo waxtar u soo kordhay qaranka Somaliland dhalinyarada ayaa si wada jira u soo dhaweeyay saldhigga Imaaraadku ka dhisanayo magaalada Berbera ee gobolka Saaxil iyagoo ku amaanay xildhibaanadii shalay meel mariyay go'aankaasi dhalinyaradan oo hadalka isaga kala dambeeyay ayaa ugu horeyn waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha dhalinyarada ee xisbiga kulmiye adduunku inuu saaxiib inala noqdo ayuu horseed u yahay marka madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamuud Siilaan iyo xukuumaddiisa waa ku hambalyeynaa labada gole baarlamaanka iyo guurtida waan ku hambalyeynaa heshiiska sidii shalay aqlabiyada ahayd ay u meel mariyeen u taageeri mayno waxa weeye qof jeclaysi waxaan u taageeraynaa faa'iidada qaranka ugu jirta waxaan u taageeraynaa investmentka iyo maalgelinta ku jirta dhaqaalaha ku jira amniga ku jira waxa mudan in aynu adduunyada la macaamilo marka waanu taageeraynaa waanu isbarbar taagaynaa madaxweynaha iyo labada goloba waanu ku bogaadinaynaa dhiga military anagoo dhalinyaro ahaan iyo dhalinyarada mustaqbalkaba ah waxa weeye guul soo hoyatay qaranka Somaliland waa guul soo hoyatay baan leenahay dadka ka xum ee horumarka dalka ka xumna waxaan u leenahay kolay waa wax yare waxaan u leenahay war siyaasad cad la kaalaya oo dalka lagu hogaamiyo oo dalka wax ka horumarisaan madaxweyne iyo labada golaba boqolkiiba boqol waa ku mahadsantihiin hawsha balaadhana qaranka u qabateen dalkiina u qabateen dadkiina u qabateen dadkii ka soo horjeedana waxaan u leenahay maadaama tiim lideradii dalka tihiin hogaamiyaashii dalka tihiin shirkii shalay golaha ka dhacayna ka soo baxdeen بالبرتبة المدرسة سيابا خوص. دنيا وحكوه مرتا الفيسمن كاين دنيا كهشوا هدين الدنيا الفيسمن كي تل كيننا خيرات كيننا وحبك سو سارن وينو حق لها لاونو ووركين نقطة وحن ديد وحن عمبارة قرن كن سعون مايو وحيالها قرن كن لجوه مرنايو أي مشاريع ده أي الدنيا كهرينو أي نسيق أي نسود وينو waxaan soo dhaweynaya talaabada ay qaadeen labada golaha guurtida ee baarlamaanka ee ay ku ansixiyeen saldhigga military in la siiyo dalka Imaaraadka Carabta ka madaxweyne mustaqbal ahaan waxaan leeyahay sharciga ha sareeyo 150 xildhibaan oo golaha fadhiya in 5 xildhibaan ay golaha buuq galiyaan ay qas iyo rabshad ay galiyaan looma baahna ciidankii talaabada qaaday iyo gudoominayay shirkaana waan ku hambalyeynaya talaabada ay qaadeen waxa weeye waxaan kale ku hambalyeynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo khudbad qiimo badan ka jeediyay halkaasina aad baan ugu bogaadinayaa sida wanaagsan ee arrinka loo qaatay golaha ay u soo dhaweeyeen aad iyo aad baan u bogaadinayaa waxaan iyagana sii bogaadinayaa 8 xildhibaan ee golaha wadani ka tirsanaa ee wakiilada ee iyagana ansixiyay gartay mustaqbalka jamhuuriyadda Soomaaliland aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa heshiiskaasi dhalinyaro ahaan wadan ahaan runtii faa'iido badan buu leeyahay shaqalaanta baahsan ee wadanka ka jirta runtii asadkan mustaqbalka wadanku u harayo waxyaabo badan baa wadanka faa'iido inoo ah waxaan leenahay hal lagu garab tago hal lagu garab istaago go'aamada madaxweynaha runtii uu taariikhda uu kaga tagay gobolka ama jamhuuriyadda barakeysan waxaan jecelahay mar walba inaynu wixii horumar ah aynu meel iska soo hor istaagno yacni inaan noqonin dad horumarka nacab soo dhaweynaynaa heshiiska taariikhiga ee aanu la gelayno ama heshiiska ay saxeexeen ay meel mariyeen golayaasha qaranka Somaliland madaxweynaha Somaliland shalayta markuu khudbada jeedinayay wuxuu ku daray waxa la inoo dhisayaa wadada isku xiraysa meesha la yiraahdo Berbera iyo Wajaale ama Somaliland iyo Ethiopia halkii kiiloomitir waxa ku baxaya 1 milyan oo dollar baa ku baxaya wadaduna 250 kiiloomitir weeyaan marka waa mashruuc aad iyo aad u ballaaran oo ummaddu ay ka faa'iideysanayso oo magaranaysaa qiimo weyn ugu fadhiya dadka horumarka jecel kuwa diidayana waxaan leenahay waxay doonayaan inay kala dhantaalaan dalka horumarkiisa iyo dhismaha iyo hawlaha runtii waxa maanta halkaas ugu keenay wax inaga wada runtii aynu ku wada faraxnay isla sinaynu dareen u wada bixinay aad baan soo dhaweynaa saldhigga military ee Imaaraadka ee Berbera waxaan soo dhaweynaynaa aanu si togan iyo si timlamanba u soo dhaweynaynaa saldhigga military ee magaalada Berbera sababtaan u soo dhaweynaynaa ma aha inaan qof ugu danaynayno ee waxaan u aragnay inay ugu jirto shacabka ama ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland guud ahaan inay dan ugu jirto saldhigan oo ay tahay boodkii ama meeshay kaga xirmayeen adduun dalka Soomaaliland waxa cadalahan la aqoonsan muddo 25 sano waxaan leeyahay Imaaraadku wuxuu qaaday tallaabo geesinimo
oo ku soo jeedinaya beesha caalamka iyo indhaha caalamka ku soo jeediyey mar labaad jamhuuriyadda Soomaaliland tanna waxaan u maleeyahay inay bees u tahay hordhac ay u tahay inaan ictiraaf buuxda ka helno caalamka tanna waxay bees u tahay horumarkii ballaadhnaa ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku keenay dalka mar labaad iyo mar saddexaad haddana dhalinyarada gobolka Togdheer aad baan u hambalyeynaa muhiimada ugu weyn ee dahsoon inoo leeyahay waxa kamid ah in statuskeena ama heerkeena diblomaasiyadeed ee caalamku leenahay inuu kor u kacayo oo caalamku marka saldhig military wadan la aqoonsan yahay oo caalamka saameyn ku leh uu saldhig naga samaysto waxa hubaala indhaha caalamka intooda kalena inayna soo eegi doonaan in uu difaaca caalamka inagala qayb qaadan doono wadankeena difaaciisa inuu nagala qayb qaadan doono waxa weeye marka saldhig military kugu yaalo iyo marka aad cid la tahay isku si lagaaga xisaabtami maayo ee waxaad lagu xisaabtamaya siyaabo kala duwan aad iyo aad u hambalyeynaya u soo dhaweynaya heshiiskii shalayto ka dhacay aqalka golaha guurtida ee ay u dhamaayeen labada golo qaran ee lagu ansixiyay military base-ka imaaraadka runtii aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa dalnahay dhalinyarada gobolka Togdheer waanu taageersanahay waxaan leenahay 25 sano ayaynu sidaa ku jirnay wadanku inuu sidaa u sii xidhnaado laga fiican inaan maxamuud taajir maxamuud jeesto shabakada caalamiga Jarca News magaalada Burco